horta iyadoo si Puntland baan ahay Puntland baan ahay barnaamijka dimuqraadiga Puntland meel walba Puntland kamid ah inaan gaarsiiyo ayaa mataqaanaa shaqadeedu tahay hadda bariyo u dhameeyay waxaan ku jiray shaqo balaaran oo la xiriirta arrimahaas waxaan ka howlgalaynay deegaanada gobolka bari oo dhan iyo qaar kamid ah gobolka Karkaar iyo qaybo kamid ah gobolka Nugaal hadda aan joogno intii badnayn insha Allah hadda meel fiican ay maraysaa xaaladeedu insha Allah socotaba saddexda habeen u dhameeyay deegaanada fogfog gaariwaag loo yaqaano kamid tahay gobolka bari ee Boosaaso deegaankeeda ah ama deegaanka Qandala ayaan ka howlgalay dadkuna safaf u soo bixin iyagoo codeynaya barnaamijyadii codeynta ku jira sida deegaanka Karimo Ceelgaal Unuun Beelwacatay Xamurre iyo Boliga iyo magaalooyin kale kamid ah gobolkan Karkaar sidoo kale maanta waxaan ka howlgalay qaar kamid ah degmooyinka isku shuban odayaashii dadka deegaanka hadda saacad korba soo wacayeen waxaan naga go'an anaga inuu ku shaqeynaa siyaasadda madaxweynaha inaan barnaamijka dimuqraadiga aan meel walba aan gaarsiino insha Allah sidii loo hirgelin lahaa su'aashaas hadda su'aal aniga itaal maaha anigu cusub bil baan joogaa ciidan la qoran ciidanku wasaaradda maaliyadda ma qorto mushaarkana wasaaraddu marka la soo gudbiyo ayay mushaarkiisa marka hadda su'aashaas maaha su'aal mataqaana aniga aan xilligeeda joogto ama su'aalan ka jawaabi karo maaha shaqada aniga markaas ayaan ka jawaabi karaa waxaan leeyahay in barnaamij khaldan abaarayso lacagaha sheegaysa lacag wasaaradda maaliyadda soo mara ama lacag wasaaradda maaliyadda ay bixiso ama ma ah mana filayo inay jirto barnaamij noocaas waxaa ka hadlaysay sheegaya beesha caalamku daraad u dhamaysa ayay timi safiirada adduunka ugu waaweynaa baa yimi waxayna ballan qaadeen taageero dhaqaale inay ku bixin doonaan in doorashada qof iyo cod adduunka oo dhan ayaan soo dhaweeyey marka waxaan maleeyaa su'aashaas inay meel kale ku habbooneed inay wadiso dowladda waqtigeeda uma harsan dowladda sanadii dheeraad baa u harsan dowladda hala socoto dadkii baa abaabulaya dadkii baa dariiqada taagan oo codanaya si aragtay maanta dadkii iyagoo anagaan abaabulin tuulooyinkii degmooyinka kulli iyaga dariiqa la taagan gadacaan lo haama dhigtay oo codanaya aragtay marka ani waxa u haystaa in 4 bilood ama 5 bilood wax lamid ah for example hadda deegaamada aniga ka soo jeedo Qandala iyo Balidida iyo Boosaaso meelaha lamid ah waxaan aaminsanahay 3 bilood ama 2 bilood gudahood doodii doosho loo dhaqaaqay ka geliso marka waxaan aaminsanahay 100% boqolkiiba boqol 3 bilood oo horeysa in shaqadaas ay soo dhamaan doonto waa dhici kartaa qof mataqaanaa tala ku xisaabtamaya ama siyaasi caraysan inuu barnaamijyada noocaas uu meelaha ka sheego oo ama siyaasi xilligiisa soo qaatay oo mataqaanaa hadda barnaamijka fadhiya inuu arrimo noocaas ka hadlo oo mataqaanaa ay u arko laakiin barnaamijkan waa barnaamij soconaya waa barnaamij hirgalaya waa barnaamij adduunka iyo dadka shacabka dadkii baa baahan oo ordaya marka shacabka aragtiisa lama hor istaagi karo rabitaanka shacabka lama hor istaagi karo dowladda waxaan ku qasbanay inaan rabitaanka shacabka aanu hirgelino marka warkaas waxaan leeyahay waa waraan jirin أنا حسب ما أعرف حسبيه أنا ururna siyaasiyiin hore ama siyaasiyada baga muddo waan siyaasiyada dadka uma taliyo dadka madaxweynuhu leeyahay dawlad buu leeyahay dawladda shacabku waxay ka saaran tahay dawladda bulshada ka saaran tahay marka ninka hoostiisa fadhiya mataqaana waxa loo diin ma horta aniga saa ogtaaba anigu absaaq ahaan hadda say ka waramo anigu dadka asaasaasha Puntland joogay oo ka soo shaqeeyay xilliga Puntland la asaasay gudiyada wada tashiga ergadi baan kamid ahaa mataqaana gacanta taagaysay 15 sano oo kamid ah aniga baa waxa baarlamaanka Puntland kamid ahaa doctor kasina wada ka maqlaana aniga labada xukuumadood baan ku soo jeeday marka waxaan family siyaasadda Puntland magac ahaan ku leh family dhaqan ka soo jeeday siyaasadda ku leh dalka wuxuu qaban karaa aan looga maarmin markay gaarto mararka qaar kood xaaladaha noocaas aan looga maarmin inay wax ka qabtaan anahay ma hayna iska yimi dadku siyaasiyiintu qaar ee Puntland ka wasiday oo hadda iska yimi oo xilal ka qabtay laakiin anigu waxaan asaaskeeda soo jeeday wax ku lahaa contribution ku lahaa ku soo koray xil ka soo qabtay marka xilliyada adagna loo baahdo sidii mataqaana darayada uga dhawo dadka xun iyo mataqaana dhibaato in dadka aan mataqaana ka hor istaago ama dadka dhibaatada Puntland ku haya ayaana marka taas u qaaday in loo baahan yahay inaan ahay xilliyada kala guurka ama xilliyada noocaas ninka wax qaban lahaa oo dalkan gaarsiin lahaa waayo ku soo taabnay dalkan waqti baan soo gelinay ana labaatan jira dalka mataqaana ama 17 jira baan ka soo shaqeeyay mataqaana si Puntland loo asaasi lahaa maanta inuu 40 jira mataqaana waa inaan ka shaqeeyaa meesha waa yaamay dimuqraadiga kala ka shaqeeyaa si dawlad ku jira oo barnaamij dawlad diidan nin walba ka shaqeynaysa inuu ku jira maahan qof siyaasadda ka mid tahay waa inaad ka shaqeysaa laakiin siyaasadda ku jira aqligu siin maayo marka qofka dadka sheegaysa inuu ma garanayo ma ogi laakiin dad wali haday jireen dad wali bay ahaayeen dad meel qaba maahan horta hada baa taariikhda aniga xilliyadii aan journalista xoqol jiray
aranjan horta waa jirtay aranjan waxa dad dariiqyada gala kuwa darbiyada wax ku qora dad noocaas ah xilligan anigu aan jiray xilliyeeda ma hadaan maqlay dad aranjan leeyahay dawladdu soo galay oo mataqaana ilo markii beelay oo saameyn yeeshay anu saameyn noocaas aranjan leeyahay ma aan ogi laakiin anu waxaan dad anshax xasaasadeed xumeeyay oo dadka shacabka anshaxooda siyaasadeed xumeeyay warkaa waxaan u arkaa dadka ku jira hadii ku jira dawladda ka baxeen in ay hayeen qodax siyaasadeed oo shacabka iyo dawladnimada ka baxday ayaan aaminsanahay mana warka wax saameynaya leeyihiin